Waa maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii maanta ka dhacay Kudaa oo ay khawaarijtu gacanta ku dhigtay. Haddaba dagaalkii maanta kooxda khawaarijta ah ayaa soo bandhigtay ciidamo ay ka qabteen Jubbaland. Waxaan rabaa inaan kula wadaago sawirro iyo muuqaallo cadeymo ah jab xooggan oo maanta loo geystay khawaarijta iyo sidoo kale ciidanka Jubbaland oo iyagana dhib xooggan la gaarsiiyey. Haddaba sidee wax u dhaceen yaana haatan gacanta ku haya magaalada Kudaa. Waxaan rabaa inaan kula wadaago xogihii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay weerarkii ismiidaaminta iyo qaabka la yaabka leh oo aan horey loo arag ee khawaarijtu ugu qaaday magaalada Kudaa. Amaantantahay soo dhawaa. Kudaa waxaa ka dhacay weerar aan horey u dhicin, waxaana halkaasi ku baaba'ay ciidamada labada dhinac ah iyo sidoo kale dad shacab ah. Weerarku waxa uu ku bilowday qaab aan horey loo arag. Khawaarijtu waxay isticmaaleen daroon laga soo buuxiyay walxaha qarxa. Magaalada Kudaa waa magaalo jasiirad ah ama jasiirad u ekay ah oo baddu ama bariga meel yar ka soo gala. Ciidanka Jubbalandna waxa uu ka deganaa laba fariisin. Waxaa la sheegay khawaarijtu in muddo dhowr bilood ah ay qorsheynayeen weerarkan. Waxa ay ka dalbadeen dalka banaankiisa qalab daroonis ah oo lagu rakibo walxaha qarxa oo weliba aad u halis badan. In muddo ah ayay basaasayeen, jaajuusiin ayaa u joogay gudaha magaalada. Xogaha iyo macluumaadka iyo tirada ciidamada ayaa la siinayay. Kadibna Saaki Ali Saydii ay labadii xeraba ku waabariisteen. Waxaa la sheegay xalay 10 saac oo kale inay magaalada gudaha u soo galeen iyaga oo fentry oo kaliya ku socdo oo wax gawaari ah ayna la socon, laakiin ku gaashaaman dabajeexa sabanka iyo sidoo kale qalab ay wateen oo drones ay u horeysay. Waxaa la sheegay Saaki Ali Saydii waa barigiiba in ciidanka Jubbaland ay ka war heleen drones lagu dhufanayo xafiisyadii, albaabadii iyo meel walba oo ciidanka jahwareer ku riday. Ciidanka mid ka mid ah waxa uu deganaa geeska magaalada halka kuwa kalena xeebta ay deganaayeen oo ay ciidanka dhinaca badda ka ilaalinayeen. Labadiiba marka hore drones ayaa lagu garaacay, kadibna baabuur ayaa magaalada soo gashay kuwaas oo sidoo kale qaraxyo waaweyn ka geystay gudaha magaalada. Dabcan hal wado ayaa soo gashay magaalada, halkii wado ayayna soo mareen, waana waxa dad badan oo reer Jubbaland ah ay la yaaban yihiin. Halkaasi khawaarijtu waxay sheegteen inay ku dileen ama ku qaarijiyeen wax ka badan 160 askari. Walow taas la xaqiijiyay inay tahay been, haddana ciidanka Jubbaland ee saaka weerarka gaadmada ah lagu qaaday waxaa laga dilay ciidamo aad u fara badan, maadaama weerarku uu ahaa mid ku bilowday drones lagu soo raray walxaha qarxa. Intaas kadib wax ka yar hal saac ayay kula wareegeen fariisimihii ciidamadii Jubbalandna waa laga saaray xerihii ciidamada. Sidoo kale waxa ay fariisteen wadooyinkii ay ciidamadu mari lahaayeen. Waxyaabaha la yaab kale waxay ahaayeen xeryaha ciidamada waxaa ku wareegsan godad la jeexay si aysan u soo gelin gawaarida khawaarijta. Laakiin militariga Jubbaland markay isku dayeen in gawaaridooda ay la baxaan, waa ay la bixi waayeen oo wixii ay gacan ku qaadan kareen ayay ku qaateen, gawaaridiina waxay u hareen kooxaha khawaarijta. Isla dagaalkaasi waxaa lagu qabtay ciidamo fara badan oo sawiradooda aad halkan ka arkaysaan, waxaana soo bandhigay kooxda khawaarijta ah. Intaas dagaalku kuma ekaan ee ciidanka Jubbaland waxa ay dalbadeen gurmad degdeg ah, waxa ayna fariisin ka dhigteen magaalada geeskeeda. Ku dhowaad 3 saac oo subaxnimo ayaa weerar kale lagu qaaday. Ciidamadii Jubbaland mar kale waxa ay noqdeen kuwo badda ku daata iyo kuwa magaalada farxad uga baxa. Hal qof oo ciidanka Jubbaland ah magaalada kuma harin, way isaga baxeen. Waxay gurmad ka soo gaaray magaalo la yiraahdo Buurgaabo iyo sidoo kale Raaskambooni. Gurmad ayaa soo gaaray, waxa ayna magaalada ka fariisteen dhinacii bariga. Kooxda khawaarijtaana ilaa iyo haatan waxa ay ku sugan yihiin bartamaha magaalada. Waxaa gurmad soo siiyey Mareykanka iyo sidoo kale diyaarado laga leeyahay dalka Kenya, kuwaas oo duqeyn isku dayay magaalada inay ka sameeyaan maanta. Laakiin nasiib xumo, khawaarijta ayaa isugu wacay dadkii shacabka ahaa ee magaalada, waana ay shiriyeen. Waxa ayna amar ku siiyeen inay ogolaadaan in gawaarida ay wataan ay ku soo baakintaan guryahooda, sidoo kalena aynan ogolaan doonin in hal qof uu ka baxo magaalada. Jubbaland gaar ahaan magaalada aan iraahdee Kudaa waa jasiirad oo kale, hal wado oo yar ayaa soo gala, inta kale badda ayay kula jirtaa. Waa jasiirad u ekay. Halkaas wado haddii ciidamo ka fariistaan meel ay u baxaan malahan. Halkii dhinac ayaa laga fariistay, waxaana dowladda Mareykanka iyo midda Kenyaba ku adkaatay in la duqeeyo khawaarijtii. Waxyaabaha la yaab kale waxay ahayd
dagaalada ka dhacaya gobollada kale ee Soomaaliya, khawaarijtu inta badan marka ay weerar qaadayaan ma isticmaalaan wax ka badan 2 gaari, kuwaas oo ay ugu talagaleen inay ku weeraraan goobta ay rabaan inay qarxiyaan. Inta kale lug ayay ku soo galeen, laakiin magaaladan waxay la soo galeen gaadiid dagaal oo tirabeel ah. Waxay ugu talagaleen magaaladan si caadi ah inay u haystaan oo ay u xukumaan, shacabkana ay ku gambadaan. Haddaba Kudaa gacanta ayay ugu jirtaa, ayagana jab fara badan ayaa saakil la gaarsiiyey oo ciidamada iyagoo dagaalamaya ayayna magaalada ka baxeen. Laakiin maadaama magaaladu ay gacanta ku haystaan 2 fariisin ay qabsadeen, iridii magaalada laga soo galayana ay fadhiyaan, shacabkiina ay ku amreen in la joogo oo ay wada dhintaan, yacni waxaa waaye dabcan gacanta iyaga magaalada ku haya. Magaalada Kudaa ee Jasiirad Wakiil ah waxay muhiim u tahay isu socodka Jubbaland oo dhan. Ciidamo waxaa jira maanta ka tagay magaalada Kismaayo oo jooga magaalada korkeeda oo badda saaran, doonyo wata oo ay ku adkaatay inay magaalada soo galaan. Ciidamadaasi waxaa la sheegay marka hore in dhinaca badda ay taagnaayeen, haatan ay qorsheynayaan in xeebta ugu dhow ay ka degaan oo si fentry ah ay ku soo galaan. Laakiin sida la qorsheynayo, walaaca waxa uu ka jiraa qaabka loo kala saari lahaa ciidamada khawaarijta iyo shacabka goobta saaran haddii la duqey lahaa ama lala dagaalami lahaa. Magaaladu in la go'doomiyo ayay isku dayayaan maamulka Jubbaland, laakiin shacabka ayaa ku baaba'aya. Magaaladaasna waa magaalo muhiim u ah isu socodka gaadiidka badda, waana bartamaha Kismaayo iyo waxay ku taallaa Ras Kamboni. Waxayna u baahan tahay qaab degan iyo istiraatiijiyad. Haddaba waxaan rabaa inaan kula wadaago macluumaadkii ay khawaarijtu ka soo bandhigtay dagaalkaas iyo sidoo kale kii Jubbaland. Jubbaland waxay soo dhigeen qoraal kooban oo ay sheegeen inay ku fashiliyeen weerar khawaarijtu soo qaatay. Wax intaas ka badanna kama aynan oran dagaalka, laakiin khawaarijtu waxay soo bandhigtay sawirro, meydad, gaadiid dagaal, fariisimo iyo sidoo kale guud ahaan magaalada Kudaa oo iyaga gacantooda ku jirta. Marka hore waxaad ila daawataa inta aanan muuqaalkan dhammaystirin, bal waxaad la daawataa qayb ka mid ah muuqaalada codkii ay soo duubay loo aragtay ugu faahfaahiyeen weerarkaasi ay ku sheegeen. Ilaa iyo haatan waxaan sugaynaa cagmarinta ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale inay soo bandhigaan xaqiiqooyin la mid ah kuwa khawaarijtu ay soo bandhigeen. Khawaarijtu waxay soo bandhigteen maxaabiis, dad ay qabteen, gawaari, meydad, xarumihii ciidamada, sidoo kale muuqaalana waa ay madleen inay soo bandhigi doonaan. Dabcan nin xaaladdu ku adag tahay oo magaalada laga faramaroojiyana waxaasoo dhan sooma dhigeen. Nimankaana waxay rabaan magaaladan inay ka dhigtaan saldhig oo ay muruq iyo xoog ay kula wareegaan. Wixii ka soo kordha muuqaaladana dambe ayaan kugula wadaagayaa. Fadlan sheer garee, saaxiibada la wadaag. Dhalinyarada iyo askarta geesiyaasha ee halkaasi ku waxyeeloobana u duceyn Ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariisto. Kuwa gacanta cadowga ku jira, kuwa dhaawacana caafiyo, kuwa cadowga gacantiisa ku jirana Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo furdaamiyo. Waa mahadsantihiin.